madaxweynaha muddo-xileedkiisa dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa weli wada go'aanadiisii ku dhisnaa ismidaaminta siyaasadeed ee soo bilowday sanadkii 2017 markii loo doortay madaxweynaha Soomaaliya. madaxweyne Farmaajo waxa uu mar ahaa siyaasiga ay ugu jecel yihiin shacabka Soomaaliyeed iyadoo aan loo fiirin qabiil iyo deegaan midna. waxa uu saaxada siyaasadda Soomaaliya ku soo galay hadallo ku dhisan dal jecel, cadaalad raadin, shaqo abuur, horumarin bulsho iyo ballanqaadyo kale oo waaweyn. dhammaan ballanqaadyadii madaxweyne Farmaajo ayaa isu bedelay dhinaca kale, waxayna sanad kasta shacabka Soomaaliyeed ee baranayeen farmaajaha runta ah ilaa maanta qof kasta uu wadnaha farta ku hayo si uusan dalka u gelin burbur iyo colaas sukeeye. waxaa jira 4 qodob oo muujinaya in madaxweyne Farmaajo uu ka qoostay in mar kale rabitaan dadweyne xilka ka qabto Soomaaliya, waxna qodobadaas ay kala yihiin. 1. fadeexadii ugu weyneed ayuu madaxweyne Farmaajo kala kulmaya go'aanada maalmihii ugu dambeeyay uu qaatay ee lagu difaacayo taliyii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Faad Yaasin Xaaji Daahir, isla markaana la isku hortaagayo kiiska Igraan Tahliil Faarax oo ahayd sarkaal ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. dad badan ayaa rumaysan in madaxweyne Farmaajo uusan kaliya saaxiibtinimada Faad Yaasin go'aanadan u soo saarin, balse ay suurtagal tahay in markii la baaro kiiska Igraan Tahliil ay soo bixi karaan mawjado kale oo culus, maadaama eedaha loo haysto hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka aysan ahayn kaliya kiiska Igraan Tahliil Faarax. sidoo kale waxaa jira in madaxweyne Farmaajo uu dhaawac weyn kala kulmay ku dhawaad 7,000 oo carruur Soomaaliyeed ah oo tababar loogu qaaday dalka Eritrea, kuwaasoo la sheegay inay ku dhinteen dagaalo ka dhacay dalka Itoobiya. kiiskaasi weli kama uusan hadlin madaxweyne Farmaajo, guddigii loo xil saarayna waxaa la sheegayaa in is-hortaag lagu sameeyey. 2. dhiibistii qalbi dhagax. sanadkii 2017 isagoo bilooyin kooban madaxweyne ka ah Soomaaliya ayuu madaxweyne Farmaajo waxa uu maamulkiisa dhiibay Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax, iyadoo jabhaddii oo ka tirsanaa ONLF xukuumaddii xilligaasi jirtay ee ku dartay liiska argagixisada. dhiibista qalbi dhagax ayaa noqotay bar madow oo aan ka harin madaxweyne Farmaajo. 3. weeraradii lagu qaaday siyaasiyiin badan oo miisaan culus ku dhex lahaa gudaha Soomaaliya. maamulka madaxweyne Farmaajo 4 sano ee la soo dhaafay waxay qaadeen weeraro badan oo dalka gelin gaaray xaalad dagaal sukeeye ah. weeraradaasi waxaa laga xasuustaa weerarkii 2017 lagu qaaday guriga hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, waxaana halkaasi lagu dilay ugu yaraan 5 qof, iyadoo sidoo kale la dhaawacay murashax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur. weerarkii ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay sanadkii 2018 iyo xariggii Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo ilaa hadda iyadoo aan maxkamad la saarin ku jira xarunta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Habarqadiijo oo ay maanta ciidamo is horfadhiyeen. weerarkii lagu qaaday culimadii maamulka Ahlus Sunna wal Jamaaca iyo weerarkii lagu qaaday madaxdii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed, dagaaladii ka dhacay Muqdisho ee sababay muddo kororsiga iyo weerar kale oo waaweyn oo waddanka ka dhacay. 4. muddo kororsiga 2 sano iyo isbaarooyinka doorashada. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ah madaxweynihii ugu horreeyay ee burburkii kadib samaystay muddo kororsi oo dhiig ku daatay, kadib markii xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ay ugu dareen 2 sano oo dheeraad ah. ilaa hadda madaxweyne Farmaajo waxaa lagu eedeynayaa inuu caqabad ku yahay doorashada Soomaaliya sidii u hirgeli lahayd, isagoo daqiiqadii ugu dambeeyay ee joogitaanka villa Soomaaliya ku macsalaameynaya go'aano ka sii fogeynaya rabitaanka shacabka Soomaaliyeed. caburin dadweyne, hanjabaadda saxafiyiinta iyo siyaasiyiinta ayaa qayb ka ah waxyaabaha lagu eedeynayo maamulka madaxweyne Farmaajo. afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Xaashi ayaa galabta qoraal oo soo dhigay baarta uu ku leeyahay Twitterka waxa uu digniin ugu diray dad oo ku tilmaamay inay duulaan ku yihiin shacabka iyo dawladda Soomaaliya. waxa uu dadkaasi uusan sheegin ku tilmaamay inay faafinayaan been abuur iyo dacayad ka dhana dadka iyo dawladda Soomaaliya. waxa uu ku tilmaamay Soomaaliyada maanta inay ka duwan tahay tii hore oo ay dadkeedu baraarugsan yihiin. haddaba maxay kula tahay madaxweyne Farmaajo tallaabooyinkii ugu dambeeyay oo qaaday?